sidooda ogsoontihiin dhowr sannadood 2 sano 3 sannadood Ethiopia waxa ka socday marxalado kala duwan iyo siyaasado kala duwan oo hirdamaya asaasi caawa cabdi ilay iyo xukunkiisa waynu dul istaagi doonaa galgalanaya ee nafla caaridka ah waa cabdi maxamuud cumar cabdi ilay ee nafla caaridka waynu dul istaagi doonaa halkuu se ku galgalanaya waxa uu doonaya inuu xajiimeeyo soomaalidii kale ee deganeyd dowlad deegaanka soomaalida Ethiopia ee ummadii kale ee dirtii iyo sheekh haashtii iyo reew xasankii iyo wixii meesha deganaa buu doonaya inuu iminka ku dhex galgasho uu sheekada ka dhigo Oromo iyo Soomaali laakiin Oromo iyo Soomaali is hayaa ma jiraan xaqiiqo baynu u sheegnaa ummadda waxaanu ka hadalnaa isxulufaystay kacdoonkii ugu horreeyay amxaarada iyo Oromada xuluf ahaayeen Tigreega iyo ogaadeenkuna xuluf ahaayeen waa sida qofka Ethiopia u dhundaloola ama siyaasadda Ethiopia la socda haddii aanad siyaasadda Ethiopia aanad u dhundaloolin oo aanad la socon waxa tahay qof u baahan in laga shaafiyo war Tigreega iyo nimanka la yiraahdo ogaadeen way wada socdeen nimanka amxaarada la yiraahdo iyo nimanka la yiraahdo Oromaduna xulufo siyaasadeed bay leeyihiin xagga Ethiopia haddaba ummadda waxaanu u iftiiminaynaa bal xad bay leeyihiin Tigreega iyo Oromadu waa laba kilir oo xad la weey ma maqasheen wax dagaal oo ka socda su'aashaas waa maya weey wax dagaal oo ka socda ma jiraan amxaarada iyo Tigreegu xad bay leeyihiin labadooda kilir waa xad bay leeyihiin way isku dhagsiin sidii Oromada iyo Soomaalidu isku dhagsiin ma jiraan wax dagaal oo ka socda waa lagu kala adkaaday Tigreegu waxa uu qirsan yahay oo uu qirayaa in siyaasadii laga adkaaday ay kaga adkaadeen labada qowmiyadood ee isxulufaystay waa amxaara iyo Oromiyo haddaba su'aal baad ummadda Soomaalida ee Ethiopia degan iyo dhammaan ummadda Soomaalida haddii Soomaaliya tahay haddii Djibouti tahayba iyo Soomaaliya waxa la weydiinayaa Soomaalida oo dhan Oromada yey xad wadaagaan Oromada Soomaali oo dhan xad ma wadaagaan Oromada waxay xad u leeyihiin oo xad wadaagaan oo labadooda xad iyo beerahoogu isku jiraan waa dadka Soomaalida dirta weey waa dir ogaadeen isma soo gaadhaan ogaadeen Oromo isma soo gaadhaan waxa u dhaxeeya dadka dirka u dhaxeeya garaha iyo gurguraha iyo waxa u dhaxeeya jaarsada iyo baa u dhaxaysa iyo niman la yiraahdo gaadsan iyo afarta qabiile waaweyn baa u dhaxeeya ogaadeenku xadba iyo ciisaha u sheegana haddaba dadkan miidiyaha la soo istaagaya ee siyaasadii ku fashilmay dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ee fashilka noqday waxaan u sheegnaa dadkaas waxa weeye in ummadda laga daayo majhar habaabka iyo awaaqib xumada laga daayo dadka waxaad arkaysaa miidiyaha laga qeyliyay leeyahay Abiy Ahmed waanu ku mudaharaadana haddaan nahay Soomaali annaga afkayga shaarka Soomaalinimada annaga Soomaali pure afkayga cid afkayga ku hadli kartaa ma jirto wallahi haddaanu nahay Soomaali war wax Soomaali adar nin walba reer buu Soomaali ka sii yahay ogaadeeno waxa tiraadaan haddaanu nahay ogaadeen laakiin haddaanu nahay Soomaali waxaasi waati ka shaqeyn weyday qarniga lagu jiraana waa qarnigii 100 sano baladeeg waa 100 sano Oromo madaxa lagaga taagnaa madaxa maanta Ilaahay ka dulqaaday bustihiis ka dulqaadeen Oromadu waa dad islaama 80% waa dad la xasuuqay waa dad gumeys lagu soo hayay maanta annaga haddaba ninka ogaadeena ee odhanaya dhulkayagii bay Oromo qaadaysaa Soomaali baa lagu soo duulay Soomaali meeday Soomaali baa dhul kale oo yaa ku haysta dhulka Soomaalida bal waxaad caruur baad u sheekeynaysaa misidad waaweyn waa dhulka Soomaalida yaa ku haysta cidii nuguma haysataa dhulka anaa xilal la Oromo adu xal ma lihidii anagii Oromana waanu isnaqaanaa dhulna annaga nagama qaadayaan dhulna naguma haystaan Oromo 100 sannadood qarni bay kurka ka gooyeen oo la gumaysanayay oo dadkoogii la laayay oo Sacuudiga u tahriibeen oo Yemen u tahriibeen oo Eritrea tageen oo Afrika Djibouti tageen oo Soomaaliya yimaadeen oo Somaliland yimaadeen marka waqtigoogii way taageen haddii siyaasadii haddaba Cabdi Maxamuud Cumar
iyo reerkiisii lagaga adkaaday waxaanu leenahay afgobaadsiga yareed meelaha la soo istaagaysaan social mediaha adeeru naga daaya oo naga daaya afgobaadsiga ogaadeen iyo waxaad aniga ii soo sheegtaan xalkii xad ku leeyihiin oromo bal waxaasaa laysoo sheego waana lagu soo duulay dhulkii soomaalida waxba laguma soo duula adeer beerahayga oo sidoodii oromo sidii la isku dhex deganyay laba reerood baa isku dhacay oromo iyo jilib hoose oromo iyo jilib weliba niman gaalsina la idhaah iyo garahaya baa isdilay waa la dhameeyey dowladda federaalkaana ciidamo soo kala dhex dhigtay haddaad haddaba maanta siyaasaddii ku fashilantay ood muddo intaa leeg aad ka talinaysay deegaanka dee aayar nabadgeliyo aayar macasalaama ummadda ka daadhibta waad ka dayn weyday waxaanu ugu baaqanaa dadkaasi sheeganaya soomaali baanu nahay 50 milyan ee oromada ah waxaanu u sheeganaa oon fariin halkan uga farannaa inaanaan anagu dagaalkaa aanaan ku jirin aanaan badhna ka ahayn nimanka hurinayaan oo nimanka dhagax buur degan ee magacooga la yidhaaho ogaadeen beegsada oo jawaana ku soo qaqabta nimankaasaan leenahay haddii ay ka diin waayaan fidmada ee geeska afrika iyo nabadda geeska afrika maanta doctor abiy axmed uu ku hogaaminayo ninka oromada ah ee wax bartay ee doonaya inuu afrika nabad noqoto ee doonaya inuu geeska afrika noqdaan one country jabuuti soomaaliya iyo eritrea iyo suudaan iyo kenya iyo somalilan wuxuu isku doonaya inay noqdaan waxaasoo dhani hal dal bay doonayaan sida European Union oo kale waa nin aqligiisu soo fikrayo oo doonaya in dadka la wada noolaado wax la wada cuno marka inamada yaryar ee Yurub jooga ee Mareykan jooga ee jigjiga life ka soo galaya magaalo uu shalay toole yimiday raadkii aad shalay magaalada ka soo gashay baa sii qoyeen maadaa jigjiga sheegan kara raadkaagii baa sii qoyeen roobku halku ku da'ay raadkii aad soo martay baa sii qoyeen marka adeer waxaan nii sheegaynaa anagu ha ku afgobaadsanina markaad siyaasaddii ku fashilantay markaad ummaddii madaxa isku wada gelisay markaad oromo iyo dir isku dirtay dagaal dhex dhigtay new boolisku isku direen oromadu af soomaaliga way taqaanaa shacabka oromadu way ogyihiin xaaladda iyo dhibaatada halkay ka socoto magaca soomaaliyeedna ma sheegan kartaan adeer magaca soomaaliyeed waxa uu ka dhexeeyaa shanta soomaaliyeed buu ka dhexeeyaa haddaanu nahay soomaali weyn haddaanu soomaali nahay hadda dhulkayagii annaga dhulkanaga ma soconayso dhulka meelaad ka degantay adeero dhulkanaga in badan baanu dhegaysanay dhulkanaga baloonu ku eeganay 50 milyan baa kugu soo socda 50 milyan ee badweynta inaanu kugu soo dayno annagu aforomadana waanu naqaanaa iyo inaad aayar caga dhigato ninkaa ogaadeen baanu sheegayaan ugu baaqayaan ood nabadgelyo geeska afrika ku noolaatid ood ummadda wax la qaybsatid oo horumarka socda siyaasadda haddii lagaga adkaaday qalinka iska dhiibdee ra-iisul wasaarihii dhannaa ee dowladda federaalka Itoobiya ayaa siyaasadda lagaga adkaaday rejiimkii hore ee Tigreeg ahaa muu odhan dhulkanaga muu odhan oroma nagu soo duushay muu odhan dhulkanaga muu odhan aayar buu qalinkii iyo buuggii isku duldhigo ku yidhi hooya ciddaad keensanaysaan keensada amxaarada iyo nimanka la yidhaaho Tigreegu waa jaar weeye xadki saasay beerahoogu isku hayaan wax xabadoo ka dhacay wax dagaal ka dhacay aragtay siyaasadda lagu kala guuleystaa adeer 20 sano ku dhawaad bay Tigreegu ka talinayeen Itoobiya waqtigiisu waa dhamaaday waxaan u sheegaynaa haddaba dadka doonaya burush xaarle annagana inay namariyaan adeer annagana marin maysaan magaca soomaalinimana annaga nagu marmarin maysaan burush xaarle annagu shaarkaygu uu cadiyey saasaan u caddaanayaa oromed sheegtay yuhuud baanu la shaqaysananaa oo haddii yuhuudi ogoshahay nebi maxamed yidhi calayhi salaatu wasalaam yuhuudda waa lala ganacsan karaa waa lala shaqaysan karaa waanu la shaqaysananaa waanu la ganacsananaa waddankaanu wada leenahay dheefta iyo dhibtaba waanu la qabanaa ha laga daayo new boolisku ha ka daayo fidmada uu ka dhex wado deegaanada dirka ha ka daayo wax lagu mudaharaadayaa ma jiraan ninkii mudaharaadaya dhulkanaga ku mudaharaadayo dhagax buurka mudaharaad runna waa run waxaa la yidhi soomaalidu waxay tidhaahdaa run sheeg baa la yidhi waa ceeb sheeg ayay ku mahmaadaa soomaalidu wallaahi run sheeg waa ceeb sheeg warma maantaad soomaaliyaad tidhahdeen intaad ogaadeen dhexdiinnii intaad isgumaysateen ood inan gubeednimo samayseen oo ninkii ogaadeen ee jigjiga joogay ama meeshuu doonaha joogay aad gumayseen eedna dumarkiisii gumaysay cabdiilayow eed caruurihii gumaysay eed aduu isgumaysay eed cid walba gumaysay Soomaali gumaysay ayaad maanta leedahay yaa Soomaaliyahay dumarkaad naasaha ka gogoynaysay miyaan ahayn shalay taalo Soomaali ahayn ayna ahayn ogaadeen ahayn
war criminal baad ku jirtaa annaga afkayga ku hadlana annaga magacayga ku hadlana annaga qabiilkayga ku hadlana annaga ciise u hadlana annaga gaadsan u hadlana annaga akisho u hadlana annaga u hadlana samaroon annaga ciise u hadlana dhammaantood dir oo dhan annaga u hadlana macal isaaq annaga